madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland gudoomiyaasha golayaasha guurtida iyo wakiilada iyo gudoomiyaasha labada xisbi mucaarid ee jamhuuriyadda Somaliland ee u cid iyo wadani ayaa xuquuqan ay siiyeen warbaahinta waxa ay kaga hadleen halista xanuunka corona virus covid-19 wada hadalladii u dhaxeeyay Somaliland iyo Soomaaliya iyo weerar dhawaan ka soo yeedhay qaar ka mid ah madax dhaqameedka Somaliland iyo asixinta labadii xubnood ee mucaaridka Somaliland u matali lahaa gudida doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda Somaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa shacbiga Somaliland uga mahad celiyay sida xilkaska ah ee ugu hoggaansameen talooyinkii lagaga hortagay xanuunka coronavirus isagoo qaybaha kala duwan ee bulshada madaxweynuhu ku amaanay dadaaladooda waxqabadeed ee xanuunkan ay kaga gaashaamanayaan dhammaan waxaan uga mahadnaqaynaa halkan shacabka Somaliland dhammaantood si uga hortageen ugu dadaaleen laga hortago xanuunka ay u qaateen talooyinkii iyo waanooyinkii waxaan u mahadnaqaynaa culimada oo qayb weyn ka qaadatay ganacsatada waxaan u mahadnaqaynaa bahda caafimaadka oo maanta xilka ugu weyn saaran yahay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhakhaatiirtii da'da ahayd ama waaweyneed ee shaqooyinkeeda ka soo taargaroobay waxaan u mahadnaqayaa dadkii bartay caafimaadka oo dhammaantood isdiiwaan geliyay bahda waxbarashada oo mahadnaqayaa ardaydii markay fasaxeen kama harin dhammaan jaamacadihii iyo iskuuladii waxay u sameeyeen duruus ka baxda idaacadaha iyo internetka waxaan aad ugu mahadnaqayaa warbaahinta waxaan ka wada codsanayaa dhammaantiin in la sii kordhiyo hawsha waayo weli waan wadanahay waa fayoonahay ilaahay waa inoo rooyay laakiin baqaynahay cudurku waa sii faafaya adduunka maalin walba soo kordhaya waa hawlo dul taala waxaan kaloo gaar ugu mahadnaqayaa dowladda imaaraadka carabta oo shalay diyaaradaha caalamka ee waaweyn xamuulka ah oo qalab caafimaad inoo keentay maantana qaybtii labaad keenayana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland ayaa fariin u diray guud ahaan shacbi weynaha Somaliland waxaan soo jeedinaynaa in ummaddu kii dhaqaalaha iyo xoolihiisa maanta waa lala leeyahay sakaa loogu leeyahay sadaqa loogu leeyahay dadkii baahan ninka taajirka dhexe ka waxba hayn ka boqol shilin haysta maanta waa inuu diyaar garoobaa in la iscaawiyo qodobka kooda ka iyo in la ismaqlo labada madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland ayaa sheegay in aanay jirin cid Somaliland kala hadashay qabashada wada hadalka jamhuuriyadda Somaliland iyo Soomaaliya u dhaxeeya Somaliland hadaan maxay in la wada hadlo oo Soomaaliya wada hadalkooda hore u furaa mudana aanu hirgelin in la wada hadlo oo danta aan isku haysanay waxa naga dhaxeeya laga wada hadlo wada hadal ugu dhameeyo horena waa u qaadanay haddana waa aaminsan hadii aan rabano manihin qola ka baqaysa fagaare gartayadu waa noo cadahay horena waynu u dhamaysanay qarankuna wuu isku ogyahay leexleexadna maray fagaare kasta caalami waa tagayna waliba waxaan doonaa fagaare caalamka dawladaha waa weli ururada joogaan in gartayada lagu dhageystay waxaan ku doodayno gartayna dastuurkana ku qorantay hal kale laga dooni maayo madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland oo hadalkiisa sii wata waxa uu madax dhaqameedka ugu baaqay inay siyaasadda faraha kala baxaan kuna ekaadaan doorka dhaqan madax dhaqameedka waa odayaashii dhaqanka marka ninka la madax dhaqameed horta wuxuu mas'uul ka yahay reerka doortay madax dhaqameedka waa ixtiraamayna kaalin weyn bay noo hayaan madax dhaqameedka waxaan ka sugaynaa inuu yahay nin aliisa ka baqda nin afkiisa iyo adigiisa waa laga nabad galo oo dhowra madax dhaqameedka wax laga horaa nin xishooda nin aan balaado iyo fidmo wadin ee dadka wanaag iyo nabadayn ay ahsaan u dhaxal madax dhaqameedka waxaan ka sugaynaa oo ku wareynaa inay ku ekaadaan dhaqankii wanaagsanaa ee islaamka iyo dadka iyo dhaqankeena suubanaha ee dadku ilaalin jiray inay ku ekaadaan madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland waxa uu ka hadlay labadii xubnood ee ka dhinaa gudida doorashooyinka jamhuuriyadda Somaliland ee dhawaan ay soo celiyeen xildhibaanada golaha wakiilada ee jamhuuriyadda Somaliland badhowta laba commission oo soo jeedana wada xisbi ayuu goluhu soo celiyay maalintii horena waan ka hadlay waxaan ku yiri goluhu waa madax bannaan yahay sharcigana iyaga ilaaliya iyaga nagu ilaaliya haddaan xukuumadda nahay waxaanu si xaq u leenahay marka wax soo celiyaan wixii aanu aragno inay dan ku jirto inaan kula noqono talo oo la halka ka eegteen mooyaane marka halkan kalena ka eegno waanu sirnay labada shir gudoon arrinta waanu la tagay labada shir gudoon waanu ka hadalnay waxaan islaaf garanay in marka golaha wakiiladu fasaxa ka soo noqdo
aan ku soo celiyo labadii ay soo celiyeen una waayo sheegno golaha dhammaantii markaa aanu u bandhigno oonu kala hadalno sababta ay u baahan tahay in la sii daayo maanta midi baynu doonaynaa khilaaf ma rabno khilaaf dheer oo 2 sano ka soo baxnay gudoomiyaasha golayaasha guurtida iyo wakiilada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Salebaan Maxamuud Aadan iyo Baashe Maxamed Faarax ayaa ku taliyay in loo hoggaansamo qorshe kasta oo xanuunka COVID-19 lagaga gaashaamanayo iyagoo fariin u diray madax dhaqameedka iyo dawladda aynu jaarka nahay ee Soomaaliya waana cudur dilaay dadkeenu waa dhagaadig adduunyada baqiyo xirooye inaga makhaadaha iyo meesha qaadka lagu cunayo iyo mabrisyada iyo maxaa ina dhigay waynu yar gaban oo haddii aafadaas wixii ilaahay qorayna qoran intay meerayso dadweyne waynu ka gabanno waliba xor buu yahay laakiin madaxweynuhu dee wuxuu xaq u leeyahay inuu yidhaaho arrintaasaan gartae intaa ha la aqbalo qarankanu cid buu doortaa hawl walba cid buu u doortaa madaxweynuhu madaxweynaha iyo ciddii u isagu markaa tala mooda ee u raacaysa ayaa dee qarankan u tiraahda waxaanu xukuumaddana usoo jeedinaynaa waxa weeye khasab inuu yimaado oo dadkan hadday masjiradan ay ninka qayilayaa laantiis ha qaato qolkiisa ha isku xidho xukuumadda talada ugu horeysa xukuumadda leh wixii madax dhaqameeda iyo wixii aqoon-yahana marka ay timaado waqtigeedu wixii tale ay ku leeyihiin dee waa lagala tashanayaa maxaynu yeelnaa waa arrin masiiriya oo dadka oo dhan ka dhaxaysa waxa weeye qof kastoo wax la moodo talada waa la weydiinaya laakiin dee madax dhaqameedka inay yidhaahaan u qaateen in la yaacayo oo meesha loo kala horeynayo waxa weeye Soomaaliland tagi mayso shir ayan ogeyn waxa ka soo baxayana la tagi maayo koloo markuu fasaxa ka soo noqdo haddii labada cusbaan la keenayo iyo haddii laba cusub la keenayo iyo haddii labadii hore lagu soo celiyo golaha wakiiladu diyaar bay u yihiin in la soo celiyo labada xubnood la keeno komishankuna inoo dhammaystirmo gudoomiyaasha xisbiyada mucaaridka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ee u cid iyo wadani injineer Faysal Cali Waraabe iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa dhankooda iska dabamaray muhiimadda ay leedahay in la sii xoojiyo qorshaha xanuunkan lagaga hortagayo iyagoo ka warramay in wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya u dhaxeeyana ay u egman tahay xukuumadda talada haysa waxa weeye waa inaynu amarada qaadanaa oo wixii talooyina ka timaada caafimaadka iyo guddi loo sameeyaa in civil society nagaad iyo Sonia iyo Sonsor waa inay furan center telefoon ah oo qofkii xanuunsanaya waxa laga yaabaa inaanu dhakhtarada aqoonin telefoonadooda meesha ka fog tahay oo qofku ku soo diro telefoon uu ilaahay halkaasaan joogaa waan xanuunsanaya xariista dawladuna waa inuu xariistaa cashuurta intaas ka yaraysaa waqtigan magaranaysaa kulul khayriin waxa leeyahay wada hadallada Soomaaliland la ixil saaray oo waan hageysaaban tagayaayo saaw sheegay baash ana irira hole ogol yahay war kuma ogolin inay yooya Soomaaliland wax khayre oo soo qaxay ka weyn salaadiintan waxa leeyahay anu salaadiintii aan naqaanay reerooda ka shaqeyn jiray sooligooda aan ka shaqeyn jiray aqaliinta reerooda niman ogoon reerkooda wuxuu ku soo noolaaday ayaa siyaasad international gali salaadiin aad u fiican oo si fiican u hadashay way jirtaa aad iyo aad ma ragaas u fiican yahay maanta maalin aynu uga baahi badan nahay midnimo iyo iskaashi iyo isku tiirsanaan ma jirto waxaan ku talinaynaa in guddigaas awaamiirtiisa la qaato oo talooyinkiisa la qaato weli ma inaan qaadan marka madaxweyne inagoo dhaqaalaheena dee adduunka aynu ugu qaylinno dadkii guryaha haddaan ku xarayno dee waxay u baahan yihiin nolol iyo waxay ku noolaadaan wada hadalkana sidiisaba xukuumadda u igman laakiin waxa daruuriya sidaynu kii hore midnimada ugu gallay inaynu inagoo midaysan gallo wada hadalka shirguddoonka iyo madaxweynaha iyo axsaabtu way suuraysteen waxaanu isla garannay
markaanu eegnay dee xeer hoosaadkii golaha in labadii xubnoodna la celiyo